Somalia. dalkeena Soomaaliya wuxuu istiraatiijiyad ahaan dhacaa geeska Afrika oo ah meel aad muhiim ugu ah isu socodka dunida. Soomaaliya waxa ay sidoo kale leedahay nimcooyin u gaar ah oo Alle ku maleystay sida inay maraan labada bad ee badweynta Hindiya iyo Badda Cas lehna xeebta ugu dheer Afrika iyo labada webi ee Shabeelle iyo Jubba. sidoo kale dalkeena wuxuu leeyahay beero, buuro, jasiirado, dhul leh qurux dabiici ah, taariikh fog, cunto macaan iyo dhaqan soo jireen ah. haddaba si loo soo bandhigo nimcooyinkaas isla markaasna looga faa'iideysto ayay hay'adda Samtakis qabatay bandhigga safarka iyo dalxiiska Soomaaliya kaas oo ay isugu keentay saamileyda safarka iyo dalxiiska sida travel agents, diyaaradaha heerka caalami iyo gudaha, hoteelada, bangiyada, goobaha loo dalxiiso, mas'uuliyiinta iyo marti kor u dhaafaysa 6,000 oo qof oo ka kala socday ku dhawaad 10 dal oo caalamka ah. bandhigaas ayaa lagu soo bandhigay sawirro iyo muuqaalo ka turjumaya dhinaca wanaagsan ee Soomaaliya. waxaana sidoo kale lagu qabtay doodo la xiriira caqabadaha jira iyo horumarinta dalxiiska dalka. haddaba Samtakis waxa ay mar kale qabanaysaa bandhigga safarka iyo dalxiiska oo ay ka soo qayb gali doonaan dhammaan saamileyda dalxiiska dalka oo ka ballaaran intii hore sida travel agents, airlines, tour operators, online travel portals, hotel and resorts, banks, telecommunication companies, education service providers, and museum and parks, media iyo qiyaastii 10,000 oo qof oo isugu jira mas'uuliyiinta dawladda heer federaal, heer caalami, ganacsato iyo maalgashadayaal gudaha iyo caalamkaba leh. waxa iyana sida markii horeba jiri doona waqtiga nasiib ay dadweynaha ka soo qayb gal ku tijaabinayaan nasiibkooda iyadoo ay ku guuleysan karaan abaalmarino qaali oo ay ka mid tahay xirmooyin dalxiis oo dhameystiran, tigidho iyo ximrooyin cumro ah. ka faa'iideyso ah ka maqnaan bandhigga safarka iyo dalxiiska ee Samtakis.